waxaa maanta si diiran looga dabaaldegay degmada Sheekh ee ka tirsan gobolka Saaxil waxaana isugu soo banaanbaxay boqolaal dadweyne ah oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshadu ka kooban tahay dhalinyaro haween waayeel sidoo kale waxa iyaguna socod gaardisa ama qobka ciyaar ku soo maray jidka halbowlaha oo ah magaalada Sheekh ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka tirsan dugsiga tababarka ciidanka ee magaalada Sheekh dadweynahan ayaa waxay ku dhawaaqayeen hal kudhiyo ama ereyo ay ku muujinayaan goonisataanka Jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi kadibna waxay isugu soo biishirteen goob fagaar ah ama dowladda hoose degmada Berbera oo loogu talagalay inay kala hadlaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadda 18 May ee sanad guurada 28aad ee goonisataanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waran waxa isagu halkaasi hadal ka soo jeediyay maayarka degmada Sheekh Ibrahim Cabdilaahi Cabsiye xildhibaano mas'uuliyiin kale oo tiro badan oo iyagu ka soo qayb galay munaasabadaasi gudoomiyaha waxbarashada heer degmo Maxamed Ibrahim waxaana kamid ah hadalladoodii 18 May way 28 jirsatay 28 kaas oo marka laga soo bilaabo 1991kii ayaa lagu dhisay shirkii dadka reer Soomaaliland ee kala duwan qaybaha kala duwan lihi ay halka ku shireen go'aankii halka laga soo qaatay ayaa dhaliyay Soomaaliland inay dawlad samaysato ay leeyihiin ama wada leeyihiin dadka Soomaaliland waa u dhalashay xuduudaha ma hayar iskama iman dad baa la waayay hanti baa la waayay ma hasafaad inamadiina yaryar iyo habliina yaryar Facebook website fulaan la gamayo dhimashay ku timi ilaaliya caalamka buluuga wasalaam intii baanu gamaanayay hurdada labada goorooda intii baa gurbaab quruxsan iyo geesii kacay intii bay guryuhu dhisbeen qoofka aha intii bay gabdhuhu guursadeen guudka loo dabaye oo guruf calaadiya la waa gaajo iyo ciile ku guntada Soomaaliland ayaa la kala geeyay anu halkan waxaan u muhiim inaan u mahadnaqo dhammaan intii ka soo qayb gashay gaar ahaan ciidamada kala duwan madaxda degmada xildhibaanada dugsiga sare soos iyo maamulkiisa iyo macallimiintiisa gabagabadii waxa isagu hadalka soo afmeeray isla markaana ku dheeraaday gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil waxaanu carabka ku dhuftay munaasabadda 18 May iyo muhiimadda ay u leedahay guud ahaan bulshada ku dhaqan qaranka Soomaaliland sidoo kale waxa uu mas'uulku carabka ku dhuftay macaan iyo qaraad 18 ka sanadood wixii ay soo martay Soomaaliland waxaynu maanta halkan isugu nimi sanad guuradii 18aad ee ka soo wareegtay 18 May oo aan ahayn tiro ee ah calanka iyo dawladnimada iyo golayaasha iyo structure-ka iyo qaabka inoo dhisan ee aynu sheeganayno dhammaantii waxa uu ka farcamaa ama geedka ulaamaha u ahi waxa weeyaan 18 May وعبد الرشيد مبارك عبدي عبد الرشيد سول كوب جوك TV دegmada Sheekh